waxaan idinku yeeray maanta inaan ogeysiis maxaan ku dhahay taageerayaasha xisbiga kulmiye iyo maxaan ku dhahay taageerayaasha musharaxa Muuse Biixi Cabdi inaan ogeysiis u sheego berito oo bisha ay tahay maxaan ku dhahay 6 oo isniina waxa weeye maalmihii aynu taageerooyinka iyo soo baxa aynu lahayn waxaan u sheegayaa taageerayaasha xisbiga kulmiye inay berito lagu qaban doono 5 degmo ayaa lagu qabanaya oo kala ah Maxamuud Haybe iyo Maxamed Moogi waxay ku qabsanayaan barxadii dugsiga Maxamuud Haybe ay ku qabsanayaan gacan libaax iyo macallin Haaruunna waxay ku qabsanayaan barxadda Sheekh Madar juuna waxay ku qabsanaysaa halkii ay ku qabsan jirtay garoonka Xawaadle koodbuurna waxay ku qabsanaysaa xerada kacanka halkii ay ku qabsan jirtay garoonkii Axmed Dhagax iyo 31 Mayna waxay ku qabsanayaan stadiumka Hargeysa hortiisa ay ku qabsanayaan markaas bari halkaas aynu iskugu imanaynaa waxaan fariidii ka sidaa maxaan ku dhahay musharaxa Muuse Biixi oo bari ku maqan oo aad iyo aad idinku mahad celinaya taageerada siiseen ee cudud leh ee hadii la bedel leeyahay caadifada leh ee aasiseen aad iyo aad buu idinka mahad celinaya aniga laftayduna waan idinka mahad celinaya inaa u soo baxdaan maxaan ku dhahay ka jawaabtaan baaqayga oo si wanaagsan u soo baxdaan maalmihii ugu dambeeyay baynu ku jiraa waxa u baahannahay in si wanaagsan mugle 2 maalmood baa inagu haray maalinta ugu dambaysa waxa la yeelaya ayaa biri la isu sheegi doona maalinta ugu dambaysa waxaan doonaynaa inaynu cududeenna tusno xusbiyada inaga soo horjeeda si ay u qoostaan markaas xaafadaha waxaan maanta ugu qabsanaynaa inaynu isu sheegno oo isfahamsiino sida loo qabanayo maalinteena ugu dambaysta ee khamiista ee bisha ay tahay 9 markaas ujeedada maanta xaafadaha lagu qabanaya iyo degmooyinka lagu qabanaya waa sababta weey waxaanu sii diyaarinaynaa maalinta maxaan ku dhahay khamiista ah ee inoogu dambaysa ayaynu soo diyaarinaynaa sidaynu yeelayno marka halka waxa loogu sheegi doonaa iclaamo iyo ogeysiisyo iyo waxa la sameyn doono maalinta raaliga labaad aynu leenahay ayaa halka la isku sheegaya aad iyo aad ayaan idinka mahad celinaya walaalayaalo taageerada xisbiga siisaan iyo sida maxaan ku dhahay caadfada leh ee u soo baxdaan ay waxa kale oo aan sheegaya guddi ayaan u saaray dadka xisbiyada kale ka soo digiroganaya guddi ayaan u saaray waxa gudoomiye u ah Maxamed Axmed Caali ninka la yiraahdo ninka halala xiriiro wixii doonaya magaranaysa xisbiye ka soo digiroganaya kulmiye ku soo biiraya si wanaagsan ayaa loo qaabilaya dadkaas lagu hagaagaya taleefankiisa waxa weeye 0633 157 iyo 35555 ninka la xiriira waxa weeye taleefan numberkiisu dadka xisbiyada kale ka soo digiroganaya taleefankoodu waxa weeye ninka la xiriirayaan taleefankiisu waxa weeye 0633157555 Maxamed Axmed Caalin naanaysiisu waa tiimbaro weeye ninkaasaa gudoomiyaha taleefan numberkaasaa la xiriirsan mar kasta oo idinka qabanaya saqda dhexaaday tahay dadkaas waanu soo dhaweynaynaa si kalgacal ayaanu soo dhaweynaynaa hawsha nagu badan walaalayaalo ninkaasaa u qaybnay hawlaha caynkaas